إذا بقول دولار لا بقول دولار إن أدحاسك أنت أصو وعده أما قرال أصو درتك وحنا أنا هنا أيقر أنا عشان ساعة هذا كان المو كاو ضرب أسكي إلى ما حين فائدة وهم فائديست wax ay ku goonayso 200 dollar maanta ma laha adduunyadan maalintii yawmal qiyaamah dambi meel ku yaalo adduunyadan kuma waaris kuleela ku jira sababta family dhisnaayo dumis familkeyga dad waxaan ahay aniga gabadhan aan qabo jacayl isku guursanay diinteena waxa kaleey salaatu wasalaam si xalaal ah u guursaday si diinteena ah u guursaday dhaqankeena sidoo yahay aniga u guursaday dadka qaar waxa arka commentiga dhahayaan naagta hadee muslim ahayn ninka muslimka ma guursan karo war waxa intaada soo qorin ka hor ka fiirso reebaadinimo iska dhaaf naagta muslimka aan loo ogolaan in ay naag gaal guursato laakiin ninka muslimka naag gaal uu guursan karo waa fahanteen amalna sida dhaqankeena ama diinta islaamka ku guursan kartaa nikah xalaal diinta sheegay waajib ku guursan kartaa marka adoon wixii fahansaneen in qofkii xog qaldan ka gudbiso waa qalad waa sharaf darro insha Allah waxa isku dayayaa dadkan ayaantan dhan YouTube-kayga wax u soo dhigi waaye waa aamusnay waxa sugaya oo kali inta ay waxan ka joojinayaan wixii way sii wadaan wax ay joojinayaan ilama eko insha Allah sida ugu dhaqsiyaha badan waa soo heli doona qofka lambarkeeda dhiibay qofka oo yahay lacagta la siiyay intaba aniga dabagala ku wada intaba dabagala ku wada laakiin waxa ogaatiin wallahi billahi itala waa dhaarnay hadoo Yurub joogo iyo hadoo Soomaaliya joogo iyo hadoo Asia joogo iyo hadoo meesha raba joogo maalinta qofkaas soo ogaada aniga asiga muslimna kala furfuraayo oo Ilaahay abuurtay ma lahan brother lafaha ku tashanay lafayaan ku tashanay aniga sababtoo adduun Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh YouTube daawana sama Said Serbia welcome back to another video soo dhawaada hadii tamarka ugu horeysa meesha soo booqato waxa soo cusub la kaaga codsanayna channelka waa channelkaaga marti comment subscribe noo saar waxa ku taaganaa wadada ay ku gaar lahay 100 subscribe like share comment inal wadaag intaas hadii aan ka soo gudbo maanta meeshaan waxa soo fadhiistay inaan idilna wadaago xog aniga ee qosayso ama aniga ugu saabsan saa ogtiinba maalmahan YouTube-kayga waxa maanan soo dhigin waxa aan wax u soo dhigi waayeen waxay tahay problem jiro ama culeys aan dareemay awgiis ayaan rabaa in aan halkan idinku wadaago ama aan idin soo gudbiyo sababtoo anaga hadda Soomaalinahay saa wada ognahay waxa isuma ogolin ninka maanta waxa haystana lama rabo hadii oo soo waxaysanin lama rabo macnaheedan ay tahay anaga dhulkana ma ogolin cirna ma ogolin meel dhaxana ma taagnaan karno oo macquul ma hadii aad dhulku joogin dhulka lagu ma rabo hadaa cirka aadna cirka ma taagnaan kartid dhaxdana ma la joogi karo macnaheedu ay tahay Soomaalida waxa waaye meel ay rabto oo Ilaahay abuurtay ma lahan waxa jiro san hore idinku sheegay hadda ka hor mar aan videogeyga aan YouTube-kayga ku jira hadda ka hor horaan uga hadlay waxa jiray dhalinyaro badan oo isku dayayeen in ay aniga familkayga ay dumiyaan ama ay familkayga problem ku shidaan waxaana jiro right now aan haddadan ay idila hadlaayo dad kale la soo kareystay inay hina u maleynaya ama lacag la soo siiyay ayaan isleeyahay aniga sababtoo ilaa hadartan waa yaabanaha meesha ay wax u socdaan iyo meesha ay ka socdaan waa garan la ahay macnaheeduna ay tahay sida ani ila tahay waa markii aan fikiray wax ila tahay in dadkan dad lacag la soo siiyay oo la dhahay qoyska Saciid Dumiya sababtoo dadkan aniga hadda barnaamijkan maanta iga dawado ama aan xogtooda aan rabo inaan inta idin kula soo wadaago ma ahan dad aniga ayaga xifaalta naga dhaxeeyo weligiisa wada ogtiinba YouTube-kayga uma aan soo fadhiisanin qof wax iga sheegay ama qof i caayay ama qof hadal xun i dhahay ama qof wax xun iga sheegay intaba uma aan jawaabin TikTok waa ku arkay dad fara badan oo fiidiyoada wato wax qaldan dadka ka dhacsiinayo xumaan aniga iga gudbinayo waa arkay dad fara badan waliba jiro aan TikTok-yada ku soo arkay weligeena qof inta luuq u galay ama aan dhahay fiidiyogay ka saarna ma jiro YouTube-kayga inaan soo fadhiistay cidna wali maanan u jawaabino ma dhihin maxaa iga baahan tahay maxaa iga rabtaa maxaa igu caanaysa waxyaabo noocaas oo kale wali maanan uga jawaabin qofkii ama wali qof maanan u jawaabin macnaheedu ay tahay waxa jiro dad fara badan isku dayayaan in ay dumiyaan qoyskayga saas awgeed ayaan inta maalmahan dhanba aan YouTube-kayga wax u soo dhigi waayay sababtoo culeys fara badan ay soo fuulaysan maalin hore Jimcada hadda la soo dhaafay aan bartida ku arkayseen oo aan idin dhahay waxa dareemaya culeys fara badan problema iska jiro isu duceeya adduunyadan sida waa challenge waxa waaye maanta ma jiro qof 100% clean ama 100% caafimaadkiisa taam oo yahay ama 100% aan culays haysanin ma jiro hadii aan maanta 1 milyan oo dollar lagu siiyay
waxa culays kuugu tahay oo meelaha gees mataqaanid haddii aad baahan tahane waxa fikraysa waxa leedahay dhaqaale u baahanahay macnaheedu marka waxa adduunyan challenge waay meel balance ma jiro balance ma jiro macnaheedu aan ka wado meel balance la dhaho ama qofka uu taagnaan karo habeerate ma jirto waa challenge way ka dhacay waa soo istaagay way ka dhacay waa soo istaagay kor u kacay way ka dhacay okay intaas hadii ka soo gudbo waxa jira dad fara badan aniga xumaan iga sameeynaayo xumaantii marka waa labo aniga shakhsi ahaanteeda qofku waa liigu dhigi karaa qof aniga way cayn karaa wuxuu raba ha idhaho ani maanta inuu YouTube soo fadhiisto ama TikTok wuxuu raba ha iga sheego wax oo haaya dhan ha soo daayo I don't care waxba iga ma galin laakiin waxaa mamnuuc ah in aniga la iga gudbo loo gudbo xaaskeyga ama caruurteeda wax laga soo sheego waa wax aad iyo aad qalad u ah waa wax aniga aan la fadhin waaye ama aan la aamusi waaye sababtoo ah wixii way igu sii badanayaan wax maanta kaliya aan arkay ma ahan 2 mar arkay 3 mar arkay waxaan isdhahay war dadkan niyo intee wax u wadaan si wax ka yihiin calashan ani waxa ay haysta dad views ugu raadsanay inay yihiin laakiin ma ahan dad views ugu raadsanayo sababtoo ah heer waxaa la gaaray fiiriya meesha la gaaray heer waxaa la gaaray xaaskeyga lambarkeeda in la soo waco halkaas ay maraysaa sheekada way ka soo tagtay in Instagram la iska soo waco in TikTok wax la iskaga soo gudbiyo Snapchat lambarkeedii la helabo lambarkeedii intii la helaa la soo waco sawir loo soo dirooyo qoraalo meesha la maraya ma fahanti sababtoo ah waxa u haysta aniga shalay in head oo kaliya arintan waa jirta hadda koor waxaan idin sheegay in Instagram-ka dad intay soo follow gareeyeen qoraalo u soo qoraayeen aniga igu caynayaan ama aniga igu haystaan leeyahay ninkan saas waay naago haystaa inta waay familkayga inay dumiyaan rabaan caruurteeda u gafaayaan ani i gafaayaan ya waxaas dhaw iska indhitraa dadkaas blogger saaray hadda koor hore u soo sheegay hadda ogeedeen YouTube-kayga ku jira waxa hadda ay maraysaa lambarkeeda in la soo waco meeshaas ay maraysaa fiiriya lambarkeeda la soo waco inta lambarkeeda la soo waco wax loo sheegaya waxa leeyahay qoraal la soo qoraa macnaha calashan by call ma jiro qofkii lama hadlayo laakiin qoraal la soo qoraa WhatsApp-keeda qoraal loogu soo qoraa ya saan waaye inta waaye Saciid saan ma ahan Saciid waa nin sugay kaliya passport danka ma lahan waxa waaye isheeg wuxuu kugu sugaa oo kaliya passportka Serbianka hadii uu qaato kuma yaqaano waa nin aanan dhaqan lahayn dhaqankeena caadi sida Soomaalidan waxay taqaanaa in afar naag ay guursadaan waxaan loo joogin war Soomaaliya ismaqla waxa wanaagsan in la ismaqlo horta problemka koow aanu iga imaaday sababtoo ah waxa idin hor keenay xaaskeyga waxa idin hor keenay ilmahayga horta qaladka ana iskala adiki ma leedin sababtoo ah hadii aanan maanta aan idila soo wadaagi lahayn xaaskeyga ama caruurteeda waxa maanta ka ogaateen barnaamijkeyga ama nolosheeda ama private ahaanteeda laakiin maanta waxa ogaateen in xaas leeyahay waxa ogaateen in caruur leeyahay so waxa idin fududaatay marka in aad isku daydaa in qoyskeyga dumisaan war waxa ku heleysaan malaha in qoys la dumiyo waxa waaye dambi la ka faa'iideysaan ma ahane ajirka ma heleysaan dadkan barnaamijkan wada ani waxa aaminsanahay in lacag la soo siiyo in lacag la soo siiyo ayaan aaminsanahay sababtoo ah qof aan lacag lagu bixinin ama aan interest ugu qabin intaanba ma sameeyeen ama lambarkeeda intuu soo helo ma waceen ya sababtoo lambarkeedana meesha oo ka soo helay aniga wali dabaraaca hadda wadaa I hope waxaan rajeynaa mar dhow inaan soo heli doono qofkaas meesha oo lambarka ka keenay iyo meesha oo ka soo qaatay intaba sababtoo ah lambarkeeda sida lagu ogaadaa way adag tahay weligii aniga social media-hayga lambarkeeda maana soo dhigin website-yadeeda ama YouTube ha ahaado ama Google ha ahaado ama Instagram ama TikTok ama Snapchat waxay rabaan lambarkeeda kuma jiro waa fahanteen amalena lambardeeda ku wada sameeysan yihiin ciwaanadeeda dhan lambarkeeda sida lagu soo helay way adag tahay laakiin waxa soo heli karo qof aniga ii dhow ama qof aniga aan wada kulanay oo aan ka wacay lambarkeeda ya aniga tuuna igu jiro tuunkaasna wuu soo bixi doonaa insha Allah maana dheereen wuu soo baxaya sababtoo ah waxa aaminsanahay aniga qofkaas lambarka dhiibay inuu ahay qof aniga aad ugu dhow sababtoo qof aan ii dhaweyn lambarkeeda ma keeni karo qofka oo yahane waa soo ogaana insha Allah sida ugu dhaqsiyaha badan waa soo ogaana waxa aaminsanahay inaan soo heli doono qofkaas sababtoo ah lambarkeeda si dheer loogu soo heli karo in lambarkeeda la soo helo way adag tahay neesi laakiin lambarkeeda qofka soo helay ama qofka lambarkeeda dhiibay waa qof aniga ii dhow soma su'aashu waa jawaabteeda waa taas qof aniga ii dhow ama qof aan wada kulana la waay qof aan asiga aan wada kulmin wiligiis lambarkeeda ma heli karo soo wada ogtiinba sababta qof aan la kulmi kaliya lambarkeeda heli karo waxaan ku heli karaa waxa in aan aniga maybe ayada ka wacay way dhici kartaa
sometime telefonkeyga inuu skaar ku jirin, telefonkeyga inuu dansanayo, waxyaaba noocaas tuhun ay ugu jiro. Tuhunkaasna wuu soo bixi doonaa insha Allah, sababtoo ah qoys la duminayo ama qoys dhaawac loo geysanayo way adag tahay sida lagu burburiyo, sababtoo ah family haddii aad dumisid adiga beri kuwaagaa dumayo. waa waxa ayaantan YouTube-kayga usoo fadhiisan laahay problem aniga iyo ayadana kala dhex yaala awgeed waayo. adiga haddii daawanayo maxaa ka faa'iideysaa maanta haddii aan aniga ayada aan kala tagno? maxaa faa'iideysaa? waxba ma faa'iideysid. ma kulata aniga haddii in case ilaahay maba keeno ee dhacdo in aan aniga ayada aan kala tagno, aniga in ayada u dhutinayo ama aan meel intaa fadhiisto mustaqbalkayga oo ku egyahay Neesi kaliya ma ahan. Neesi waa gabar xaaskayga, caruuray ii dhashay, waa gabar waqti badan aan isla soo qaadanay. saa wada ogtiin hadda kahor inaan idin sheegay Africa inay ila tagtay, Soomaaliya aan geeyey, familkayga aan soo baray, yaa meel walba aan soo wada raacnay. aan ogtiin Malaysia aan geeyey, Turkey isla tagnay, Europe isla tagnay, meelo badan aan isla tagnay. marka adiga haddii daawanayo maxaa faa'iideysaa haddii maanta aniga ayada aan isku dhacno, aan aniga ayada kala harno? maxay idin soo kordhinaysaa? dadka qaar waxay leeyihiin, waxay qoraalka ugu soo qorayaan bal fiiriya wallah Soomaali aniga gacana u taagay, waxay leeyihiin ninkan wuxuu rabaa inuu ilmaha ka wato. halkaasaa la maraya fiiriya, waxay leeyihiin in ilmaha oo kaa wato ayuu rabaa Saciid. iska ilaali Soomaali ha u raacin, qorshihiisa waxaa waa inuu ilmaha kaa wato doonaya oo Soomaali isla tagtaan, ilmahaas oo kaa soo reebto. fiiriya halkaasaa la maraya. wallahi anaga waa tagnay, anaga meel u soconno ma fahmi karo. meeshaas aa la gaarsiiyey in ayada qoraal loo soo qoro. waxayna imaatay aniga ayada oo problemkeena xogaa problem mana dhex olin, laakiin dad ayaa isku dayeen in ay dab naga dhex shidaan. waa bini aadam, wax way aamini kartaa, sababta qofkan computer ma aha, ma fahantay? ayadu sida ay tahay haddana waxaa la sii leeyahay ninkan ilmuhu kaa wada rabaa, iska ilaalay, weji ma lahan. dad waxaa loo soo diray sawiradooda nin iyo naag ajaanib isqabeen. hadda kahor waa maqlay aniga naftarkeyga, Sweden waaye, yara aqaano weliba ay noqotay naagtii inta isku dhaceen intuu soo Soomaaliya goo ilmihii kasoo reebtay. marka waxyaaba noocaasaa loo soo gudbinaya. waxaa leeyahay ninkan Soomaaliya ku geenaya ama Africa ku wadi doonaa, ilmuhuna kaa soo reebanaya. iska ilaali, ha raacin, ilmahaaga ku dadaal, ilmahaaga ka reebo. ninkan waa daneyste, dankaa ma lahan, sharciga kugu sugaya oo keliya, sharcigiisana hadduu helo wuu kaa tagayaa, caruurtaasna inuu kaa wato doonaya. war inta su-aasha taas ma ahan, war jawaabteedana saas ma ahan. waxba nagama ogidin privatekeena, nolosheena waxba kama ogidin. laakiin mar walbo waxaan la yaabanahay dadkan maxay interestin ay ku qabaan. waa interestina jira, sababta adduunka qof aan wax lagu bixinin waxba ma sameynayo. lacagaa lagu dhiibay, saa ana aaminsanahay barnaamijkan. dadka barnaamijka ka dambeeya lambarkeeda soo heleen, lacagaa lagu dhiibay, saa aaminsanahay 100% lacagaa lagu dhiibay. cadeynteeda inta ka soo helayeen ma idila soo wadaagay. cadeynteeda meesha lambarka laga soo helay, qofkaas qofka uu yahay, dabraaca ku wada. maalinta aan soo helaa aakhiriya adduun qofkaas aniga asiga ma iscafinina, ogaada. waxaa ogaatiin qofkaas waxa ka dambeeyay ama doonayo in familkayga uu burburiyo, maalinta aan soo helaa adduunyo intuu nool yahay iyo aakhiro ma iscafinina. haddii aan arkana maxkamada isla koraynaa, haddii oo dhintan aakhiro markii aan dhimano ilaahay soo hor istaagno ku cafima. haddaba ogow, adduunyaa la joogaa, barnaamijkan ka har. waa la dhiman karaa, ninka caawa nool beri ma noolo. ha isku dayin qoys dhisan in aad dumiso. isku day qoyska inaad dhisto, laakiin ha isku dayin qoyska inaad lagu qabato. Soomaalidana waxaas waa ku wada arkay 80%. qofka markuu horumar sameynayo ama oo kacayo ama oo istaagayo ama oo rabo inuu wax qabsado lama jeclo. qofka waxaa la jecel yahay dhagoolka aan waxba fahmin, doqonka waxba maqlin, waxba arkin, waxba aqri karin, jaahilka ayaa la doonaya. qofka haddii aragtidiisa meel dheer ay gaarto ama aragtidiisa ay siyaado ama oo qofkii qof wax maqlayo ama wax arkayo ama wax fahansan, madaxa laga goynaa, lama jeclo. Soomaalida caadiyan sidaas caadayba ka taab agtooda. war saas ma ahan baash. qofka horumarka sameynaya waa walaalka, isku dhiigaa tihiin, waa kula dhashay, Soomaaliya isla tihiin. maxaa intaasan ceeb u gaarsiinaysaa? maxaa hadda ani ka faa'iideysaa haddii ani ayada maanta aan kala tagno oo ani ayada maanta aan kala harno, bidixi midig aan kala marno? maxaa faa'iiday? ilmihii waa iga beeldaroobayaan oo ilmihii ani ayga mis arkayno. kow, sababta ilmo sida waxay ku fiican yihiin waalidka in ay la noolaadaan, hooyadii aabaha inay ku dhex jiraan ayay ilmaha wanaagsan tahay mar walba. waxaa imaanayso in ilmihii ayga halaabaan oo ilmihii ani ayga is arki weyn aan kala harno. labo, waxaa imaanayso in aan noqday nin ilmo Yurub ku dhal ilmihiisana arki karin oo ka tagay. sababtoo ah saa wada ogtiin Yurub, gabdhaha ajaanibta ama gabdhaha Soomaalida xitaa Yurub joogo waa aaminsantiin. waa I hope inaa fahansantiin aan rajaynaya. naagta Yurub markay joogto baawar ay ku leedahay. waxay awoodi kartaa naagta Yurub joogto in ilmaha markaa ilmo isku haysaan oo kaleeto in aad markii aad kala tagtaan waxay awoodi kartaa in ay ku dhahdo ilmahayga ma arki karta xitaa.
sida naagaha European-ka ka wada naagaha Soomaalida aniga ma aqaan awoodooda intee la eg tahay ilaahay awood iska leh laakiin ku ajaanibtu waxa aaminsanahay in ay awood u leeyihiin in ay ku dhahaan ilmahayga ma arki kartid mu imaan kartid mana tagi kartid adoon permission haysanin fiiriya adoon permission haysanin ma tagi kartid mamnuuc waa marka meeshaas la maraya marka maxaa faa'iido hadda maanta marka aniga ilmihi hadaa kala harno ama aniga gurigeyga aad dumisaan maxaa interest ku qabteen war $100 israaqad ma ahan $100 israaqad ma ahan ninka walaalka gurigiisa ha duminin ka fogow waxba kama faa'iideysid weliga aniga ma aanan ku hayminin ina guri dumiyo ina guri dhisa ma ahane maalin walba dada isla xiriirnaa Soomaali haday noqoto haday ajaanib noqoto problem family haystaan weliga kulama aanan talinin in uu familkiisu dumiyo mar walba waxa kula taliyaa familkaaga sida aad ku quruxsan karto qurxin ma fahant saahe ku qurxin karto quruxso familkaaga ku taxadir familkaaga ha iska duminin familkaaga laakiin Soomaalideena waxa waaye dad iska wada daciifnimadooda gaaban saa aaminsanahay sababta 100% ma laakiin dad waxa nagu jiro aragtidooda ay gaaban tahay meel yar wax ka fahmaan $100 la siina ama $200 waxa la tahay si $1 milyan haysto waxa la qof hebel isku day in aad familkiisu dumiso war maxaa laga faa'iidaa warnay Soomaalidan dhib badana war Soomaaliya intee la kaga fakana adduunyo la kaga ma fakanayo aakhira la kaga ma fakanayo intee la kaga fakana war maxaa ani idinka hadlay waxaas naga haleesay dheh war qofka doo qaldan yahay qaladkiis waa la tusaa saciido waa qaldanta qaladkaaga waa kaas ay dhaha waa qaadan aan qaladkayga laakiin anoo og inaan qaldaneen baadil ay u haysatin sababta nin lacag la soo siiyo war lacag u baahanta soo nin lacag u baahanahay lacag isiid $100 $200 maxaa faa'iido $100 $200 in aad xaaskiga inta u soo wacdo ama qoraal u soo dirto waxaanan aniga ahayn ay iga dhacaysa aad dhahdo ninkan ilmuhu ka wada rabaa iska ilaali maxay faa'iido waxa ma faa'iideyst wax ay ku goonayso $200 maanta ma laha adduunyadan maalintii yawmal qiyaamah dambiya meel ku yaalo adduunyadan kuma waaris kuleela ku jira sababta family dhisnaa dumis familkeyga dad waxaan ahay aniga gabadhan aan qabo jacayl isku guursanay diinteena waxa Cali salaatu wasalaam si xalaal u guursaday si diinteena u guursaday dhaqankeena sidoo yahay aniga u guursaday dadka qaar waxa arka commentiga dhahayaan naagta hadee muslim ahayn ninka muslimka ma guursan karo war waxa intaada soo qorin ka hor ka fiirso reebaadinimo iska dhaaf naagta muslimka aan loo ogolaan in ay naag gaalo guursato laakiin ninka muslimka naag gaalo u guursan karo وفهمتنا عملنا سيد لقن كينا أما دين الإسلام كوكو سكرتا نكاح حلال دين تارشيء واجبة وكو سكرتا مرك أظن وحي فهن سنين إن أقفك أحق قلدن أكجد بسو وقلت وأنا شرف درو إن شاء الله وحاسكو ضيايا dad kan ayaantan dhan ay YouTube-kiga wax u soo dhigi waayay waa aamusnay waxa sugay oo kali inta ay waxan ka joojinayaan wixii way sii wadaan wax ay joojinayaan ilama eko إن شاء الله سيد أقول قصيها بدنا وصهيل دونا قفك لمبر كذا ديبي قفك وياهي لعقت اللي سي أنت بقى أنا قد بقلع كودا أنت بقى دبقلع كودا لك وحقوقتين والله بالله إطلاع ودارنا يهدو يوروب جوجي يهدو صومالي جوجي يهدو إيشي جوجو يهدو مشر بهالجوجي ما أنت قفك أسوق هذا أنا جي أسيج مسلم كلا فرفراي أو إله أبورتي ملحن برادا لفاق كنتشنة لفيا أنا كنتشنة عني صابته الدون كلا وحكت انت aniga qofku xorba iga sheego hay caay u xorba laakiin familkeyga absolutely mamnuuc waa nabca taas familkeyga in lug la soo galiyo waa ka dhintaa waa garatan ma sababta ninka raga meel waxa jirta xaniis laga qaban karo xaniis waa familkiisa waay hadda xaniyaha familkiisa aa qabato ninka raga xaniis waa guus ninka raga meesha arta ka dil meesha arta kala dagaal laakiin familka dhankiisa aa ka soo marin familka waa xaniyaha waay xaniyahan wax muhiim noo ah waay xaniil aan ma soo karno حني الآن إلما لما دلك ما فهمت حنيها ديلو وقبت برادا وقلنتها هذا أو قلنتها مركن نكرجع حنيها الله ما قبته قف كاسو وايش أكتها وإداوتها بري سادم سنة كذب أفر بلد كذب وكسو أجانا ما علنت أو كسو أجانا وجو آخر الدون أني ماشي أكو أركا وحاول أني أديك ميت كنا دعاء أما أنا ذيك الدلاء أما ذا الدليس برادا وحكي الحياة مالها ما علنت كسو أجانا وقف كأتهو sababtoo ah waxaarta sheeg waxaarta samee familkeyga mamnuuc ka leex xaaskeyga ka leexo caruurteeda ka leex aniga qabso waxaarta ideh waa ku ogolahay laakiin waa qalad ina familkeyga u soo talaabsato aan naagteeda u tagto mamnuuc kugu taabaraado adiga ay daawanayo waa is ogtahay qofka aad tahay waa ogtahay
lambarkii meesha ka keentay dabagalaa kugu socdo waa ku soo helaa aniga sida ugu dhaqsiyaa badan waa ku soo helaa sababtoo ah inta qof ani aan la kulmay waa ogaa aniga oo macnaha neesi la kulantay saa ka wado neesi aniga Soomaali badan aan la kulanay inta aan la kulanana inta meel asla tagna waayo Yurub Malaysia iyo Africa markaa tagaa YouTuber ma ahan Yurub iyo Malaysia waa faanteena malena dadka ay yihiin marka lambarka neesi dhiibay ama Yurub ha noqoto ama Malaysia ha noqoto sida uu dhaqsiya badan waa soo helaa maalinta aan soo helaane maalintaas anadan isku dambayso waa salaam bye bye